madaxweynaha dalka Soomaaliya oo xalay soo gaaray magaalada Nairobi ee dalka Kenya kadib socdaalkii uu kaga qayb galay shirkii madaxweynayaasha dalalka Yurub iyo Afrika ee dhawaan ku soo gabagaboobay magaalada Brussels ee dalka Belgium ayaa maanta kulan la qaatay madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta kaasoo ay kaga wada hadleen adkeynta xiriirka labada dal. waxaa sidoo kale madaxweyne Xasan Sheikh uu kulamo la qaatay safiirada midowga Yurub u fadhiya dalka Kenya taasoo uu kaga warbixinayo waxyaabihii ka soo baxay shirkii Belgium ee dhawaan soo gabagaboobay oo madaxweynuhu ka qayb galay. wasiirka arrimaha dibadda Cabdiraxmaan Ducaale Bayle ayaa warbaahinta ugu warbixiyay kulamada madaxweynaha kadib waxyaabihii uu kala hadlay madaxdii uu la kulmay. halkan waxa la yimid Nairobi maanta oo ay madaxweynuhu saakaba yimaadeen waxa la yimid waxa laba arrimood baa ayaa madaxweynuhu ka galay wada hadallo mid waxa weeye isaga iyo madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta oo isarkay saaka ilaa saaka arugnimadii ilaa iyo goordhaweed wada joogeen goordhaweed macnaheedu yahay ilaa labadii 10 marka laga bilaabo labadii wada joogeen marka dad waxa ay ka hadlayaan waxa weeye cilaaqaadka labada wadan ka dhaxeeya labada wadan Kenya iyo Soomaaliya waxyaalo fara badan baa ka dhaxeeya xuduud baan leenahay ama ka badda ha noqdo ama ka bariga ha noqdo dad fara badan oo Soomaaliya ba halkan degan marka arrimahaas la iska waraysto.